السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada caruusad bilowga barateen qurxinta diyaarinta aroosada. maanta halkan waxaan idinku soo bandhigaynaa tilciso dabiici ah oo timaha ku kala ridaysa, timaha ku qurxinaysa, timaha isla markiiba aad sidii maqas aad marisay timaha oo shushwaar aad marisay oo kale markiiba timahaaga intii xariir ka dhigto dhalaal badan iyo qurux badan siinaysa. waana hal nabtad oo kaliya ayaa intaas oo dhan ku sameynaya. marka aynu guda galo idii tima xariir doonaysa dadka timahooda yar taagtaagan doonayeen timahoodu maasha Allah isugu duba dhacaan oo qurux u noqdaan. fadlan ila socda ilaa fiidiyoga dhamaadkiisa. waad mahadsantihiin. midhahan aan ka hadlayna waxa weeye midhaha saliidka. sawirkoodu waa kuwaas. suuqaad ka helaysaa suuqyada dhammaan Hargeysa oo dhan ama Soomaaliya oo dhan iyo meel walba oo ka helaysaa midhaha saliidka. midhahaas aad soo iibsanaysaa waxaad imanaysaa 2 malqacadood ayaad soo qaadaysaa. 2 malqacadood markaad soo qaato biyihii oo karkaraya in yar oo biyo dabka saartay oo inta leego kale oo karkaraya ayaad markii soo karaan bal 2 malqacadood ku daraysaa. marka sidaas oo kale ayuu noqonayaa biyo yar oo isjiidanaya buu noqonayaa. timahaagaad marinaysaa. marka kadib istimahaaga isagoo isjiidanayaad marinaysaa. bac yar baad ku xidhaysaa. kadib aad ku xidho ilaa saacad baad ku joogaysaa. haddii aad saacad haleelin ilaa aad badh baad ku joogi kartaa. kadib waad iska maydhaysaa. isla markiiba timahaaga waxaad arkaysaa saa u kala dhacay oon xataa inaad maqas mariso u baahnayn oo gebigoodba sidaas maasha Allah noqday. kaa mahadsantihiin. fadlan subscribe, like and share ha ilaabina. insha Allah waxaad jecelahay inaad ka faa'iidaan. tijaabiye markaad tijaabisaan kadib tijaabadiina nagu soo warcaliya commentka xagga hoose noogu soo qora. waad mahadsantihiin. waxaan kaloo idin sheegayaa qofkii jecel inuu waxaynu ka hadalno isbuuca dambe xagga hoose ha ku soo qoro mowduucu doonaya in laga hadlo oo kale. marka mowduuca ugu badan ama ugu like badan ayaan ka hadli doonaa.